I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي سيتيهين في عنتين عافمات كينا عارني وإن في عنها ما شاء الله عرجينا هذين كانين إي عافمات قبتين إن ما أنتو حايلة سوشيال جري وقضية أوردين دينا إنما بعاديهن فيديو بيجا مركوكو سو جارو بليز أديو لايك سارين كومنتين كصوب بحنين هدافين إن شاء الله هذا نوع عصبتين وحن كلنا نوسو دو subscribe saar gambaleelkana oon ka dhigo si ku soo gaaro fiidiyaalkeena dambe adiga oo maasan insha Allah waxaan rajeynayaa asxaabteyda in adinkana dhiirigelinta iyo like-ta intaba iga ilaabin qado yar oo dindina inaba caadi ahayn ayaan idin wadaa ka faa'iideysta insha Allah waxyaabahan sida u sameeyay nala daawado muuqaalkan quruxda badan aan idinkugu talagalay insha Allah daawasho wacan axbaabteyda meel waliba aad joogtiin ila daawada hadana waxaan isku dardareynaa insha Allah waxyaabihii chicken-ka laga sameyn lahaa chicken masala iyo toonta diyaarsan waa asxaabteyda waxyaabihii chicken-ka aan ku dari jiray ilaa kusoo sameynaa ma fahanteen waa yogurt-ka naturalka hore waa dhowr maro oo chicken u soo sameeyay hore waa soo daawateen gold chicken ayaa lahaa chicken-ka wuxuu ka dhigayaa ma sha Allah tastii inaba caadi ahayn uu siinayaa inaba caadi ma ahan waxaan kale oo ku daraa waa olive liver in saliid ah haysatid ayaa isticmaali kartaa ma fahanteen asxaabteed waxa aan kale ku darayaa waa liin dhanaan waa liin dhanaanta tasti ayay siinaysaa chicken-ka markii aad karsanaysid ku darso liin dhanaanta iyo ha ka ilaabin yogurt-ka naturalka chicken-kaas wuxuu ku noqonayaa mid aad u macaan oo tastigiisa ma sha Allah ma fahanteen asxaabteyda intaana isku soo labaaya waxaan kale oo ku darayaa waa cusbo yar waxyar ayaan labayaa kadibna insha Allah waxaan ku soo darayaa chicken-kii already waa soo dhaqay chicken-ka qal ayaa iska soo nadiifiyay asxaabteyda chicken-ka iska nadiifiya intiina karsanin ana hada qal ayaan ku soo dhaqay ma fahanteen waxyaabihii bahaaraadka ayaa hadda ku qasayaa si ay lafta ugu gasho insha Allah markii aan soo qasana asxaabteyda waxaan la yar daboolayaa 10 daqiiqo si uu lafta uga galo oo chicken-ka tastigiisa u wanaagsanaado ma fahanteen marka hore saas uga qastid hore foornada ka gelin wax yar dabool 10 daqiiqo ayaan yar daboolayaa kadib ayaa insha Allah dib isku soo noqoneynaa hadda walaal raxmaan kiraahdo ma sha Allah isku soo noqonay saxanka oven-ka aan ku gelinaa hadda aan ku soo habeeyay ma fahanteen asxaabteyda waxaan dusha uga soo dadaadinay waa barbarooniga saddexda nooc liin burtuqaal iyo basal xabad yaanyo ayaan korka uga soo daadiyay waxay siinaysaa dhadhan inaba caadi ahayn ma sha Allah basasha ayaa hadda dusha uga soo daadinaa basashana waxay siinaysaa caraf gooni inaba caadi ahayn insha Allah waxaan rajeynayaa adinkana inaad istigrantiin horena u soo geliya asxaabteyda chicken kaligiis inayna janaalku ku jira insha Allah adinkana ka booqda bacdaas aluminiumkan ku kufurgareeyay uu ii shidan yahay oven-ka wuxuu ii geysayaa 180 kor iyo hoos insha Allah waa gelinayaa haddana waxaan guda galeynaa intuu noo sii oven-ka nagu sii jiro chicken-ka waxaan sii sameysanaynaa briskeni white-ka ahaa hadda way noo soo qaleysmanaysaa basashii waxaa kale oo ku daraya waa kabsar caleentani markii aan soo goto asxaabteyda intaan dhaqo jarjaro ayaan shiidaa kadib fridge-kan gashtaa sidaas ayaan ku diyaarsadaa ma fahanteen intaana hadda isku soo qaleysmanayso asxaabteyda wax kale aan ku dareyna ma jirto muhiimada waxay tahay basasha iyo kabsar caleenta inay isku qaleysmato waa isla fahanamo asxaabteyda ugu qaaliga ah
kadib waxaa ku darayaa insha Allah bariiskii ayaan hadda kusoo darayaa. Bariiska isticmaalayana waa baashoori. bariis ay sida adigan isticmaali kartaa insha Allah. wax yar oo waxaa ku darayaa insha Allah xawaaji yariis aan aadna loogu badinaynin far iisoon camal. kadib waxaa kusoo darayaa insha Allah bariiskii aan kusoo darayaa. baashoori waaye maasha Allah. ani baashoorigaas isticmaalaa badanaa. ma fahanteen asxaabteyda. wax yar ayaan qaleynaynaa. qaleys badan ma gelinayno baashooriga hadii kale ka jajabaya maho. wax yaraan qaleynayaa. hadda katalkii ayaan biyo ku saartay. biyahaas ayuu karkaraya. waxaan rabaa bariiska inaan ku shubo aan ku biyeeyo soo horey oo karo insha Allah. waa isla garanayno asxaabteyda ugu qaaliga ah. waa bariis white haddana katalka biyuhu isoo kulaaday insha Allah. waa biyeynayaa. biyo ayaan ku shubayaa. hore loo ka karkaraya ma fahanteen asxaabteyda. biyaha ku karsanaadeeno inta aad bariiskaas aad sii habeenaysid. biyaha oo karkaraya hadii aad ku shubtid isla markii hore ayuu ka karaya. laakiin biyaha oo qabow hadaa ku shubtid bariiska wuu ka halaabaya. wuxuu ka noqonayaa wuu ka jajabaya. tastigiisana ma wanaagsanaanayo. bajaq uu ka noqonaya ma fahanteen. maasha Allah. hadda waxaa kusoo daray waa cusbo yar iyo qolfo oo caraf gooni asigana inoo siinaya insha Allah. intaana iska soo laabeyna asxaabteyda. kadibna daboolka ayaan u dhiibeynaa. markii uu soo koro ayaa noo balan markaas ayaan dib iskugu soo noqoneynaa. hadduu Allah raxmaanka yiraahdo. wana soo karo bariiskii maasha Allah. hadda sabiib ayaan ku dareynaa. sabiibkaas waxaan rabnaa inaan kula huurino. sabiibka maasha Allah. midka kalarkana aad u fiican oo balaaga ma fahanteen. oo kula huurinayaa. bacda aluminiumkan dhac ku siinayaa. kadibna daboolkiisa u dhiibayaa. wuu noo soo huurayaa. markuu noo huuro uu bariiskeena furfur inaba caadi ahayn uu noo noqdo aan isku soo noqoneynaa. maasha Allah. oo isku soo laabana asxaabteyda. food color waaye. hadda waxa aan kusoo daadiyay. bacdaas aluminiumkan dhac ku siinayaa. kadib daboolkan u dhiibayaa. wuu noo huurayaa bariiskeena insha Allah. wuxuu inaba caadi maaha. tastigiisa aniga ayaa idinku huba asxaabteyda insha Allah. asxaabteyda sidaan ayuu kusoo baxay bariiskii. waa sidaan aan usoo diyaariyay maasha Allah. chickenkiina sidaan ayuu kusoo baxay. salarkiisa inaba caadi ahayn oo isagana maasha Allah waa qado yar oo qurux badan oo soo tuur xaajigaada iyo caruurtaada insha Allah. mar waliba fiidiyowan soo gaara asxaabteyda. like-ta suulka dhac noogu usii share garay asxaabtaada kale. commentiga quruxda badan insha Allah. dhiirigelinta hoos dhac noogu soo sii. fikirkaaga waa noo muhiim. haddaad nagu cusub tahayna waxaan ku leenahay janaalka please subscribe noo saar. gambaleelkana dhago u yeel. dhago on ka dhigo si kuu soo gaaro fiidiyaalkeena dambe. aad u daawatid muuqaalo walba aan soo gelino. waa ku mahadsantihiin sida waxaan aad iila socotiin. aadna u daawatiin muuqaalada walba aan soo geliyo. aad iyo aad ayaan kugu mahad celinaya asxaabteyda meel walba aad joogtiin. waa inoo kulanti dambe iyo fiidiyo ku xigo aan ku kulmi doono. waxaan idinkaga tegayaa bye.